iska saadhaan oo aad rag shantooda gacmood la soo baxa aad noqotaan ninka raggaa calaacashiisaasaa waa celisa aad iyo aadna hambalyadaada intaasaan uga baxayaa waxaan soo dhoweynayaa shacabka soomaaliyeed dhammaantiinna la shaqeeya madaxweynihiinna cusub iyo ra-iisul wasaarihiinna cusub wax intaa ka dambeeya dhammaantiin waa wada salaamantiin walaalahayga soomaaliyeed soo dhowow walaalkayga qaaliga ee waraysiga hogaaminaya waan gartay aad iyo aad baa mahadsantahay intaas waa hambalyadii iyo maxay bogaadintii ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay madaxweynaha oo ah qof walba oo maaragtay Soomaaliya ama isirka Soomaaliyeed ama shaqada Soomaaliyeed waajib ku ah in maaragtay la xasuusiyo ama maaragtay aynu mar walba aynu maaragtay aynu isku dhiirigelino taas waan gartay marka waxaan ku weydiiyay maxaa loo doortay xamse maxaa loo doortay maxay tahay doorashada loo doortay maadaama ay jireen rag badan oo loogu aaneynayay in ay maaragtay sida danay oo kale muxuu ahaa shariif farmaajo oo kale xataa laftiisa waxaan maqlayay waxaan ku maqlayay farmaajo laftiisa waxaa loo dooranaya ra-iisul wasaare dad badan baa ka maqlayay dad fara badan baa jiray oo saadaasha maaragtay uga dhaweynayay isaga marka bal waxaan rabaa halkaa inaad maaragtay bal aad waxoogaa noogu ifiso maadaama oo tahay nin maaragtay maxallila oo siyaasadda la socda walaalkayga horta koowaad iyo mar labaadba arrinkaasi ninkaasi waxa loo doortay waxa weeyaan marka koowaad waa nin aad iyo aad u ah mutacallim ku soco waa isagoo nin yara wuxuu ka baxay dalka soomaaliya jaamacadda muqdisho u dhameeyey markii uu ka tegay ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo dhamaystiray jaamacad sare ee magaalada muqdisho ciidamadii haddana xalaalan uu ku soo noqday markuu ka baxay ra-iisul wasaaruhu wuxuu qixi baa dhacay qixi markuu dhacay wuxuu ahaa ninkii tegey wadamada qurbajoogay caalamka ka mida awal marka waddankii ugu horreeyey uu ra-iisul wasaaruhu tegey waxaa ka mid ah waddanka holland kabacdi wuxuu uga gudbay waddanka canada muddo badan buu ku noolaa wuxuu ka dhameeyey jaamacad masterisa uu gudbay wuxuu ku soo noqday waddanka ingiriiska PhD buu ka qaatay isagoo 3 shahaado haysta haddana wuxuu ku biiray qaybta siyaasadda jaamacaddiisii u dambeysay wuxuu dhamaystiray siyaasadda okay maadaama uu noqday nin siyaasiyahana oo aqoon siyaasadeed leh jamacadda qurumaha midoobay raggii u tartamay buu ka mid ahaa wuxuu noqday ninka geeska afrika oo dhan xukuma صح afrika oo dhan muu noqon geeska afrika looga dhigay 10 dowladood wuu gudbay haddana wuxuu gaaray inuu helo fursad dambe oo United Nationku markuu afrikada hoose wanaag ka sameeyey in laga dhigo afrika oo dhan ninka hogaamiya anu caawa waxaan kala hadlayaa masar okay aduu meeshaad igala hadlaysid waxaan u malaynayaa inay tahay waddanka Canada sidan kugu ogaa okay walaalkayga qaaliga ninkaasi waa nin mutacallina waa nin siyaasiya waa nin
soomaaliya xataa waxyaalo badan u qabtay xisbigan hadda dowladda haya ninkii madaxweyne soomaaliyeed oo etoobiya ka dega ninkii ugu horreeyey xasan maxamuud sheekh baa leeyahay waa madaxweynaha maanta madaxweynaha waa ninkii u geeyey millas iyo inaylay istusay yidhi war anna waxaan u soconnaa dadkaas soomaaliyeed ee dhulkan iyo taariikhdooda inaannu qorno xasan asagoo in badan kaad hadlaya waad arkaysaa marka hadda qodobo badan inaan sii galgala ma doonayo muhiimaddu waxay tahay ra-iisul wasaarahan waa nin aqoonta iskale waa ninkii jomo kenyaati ku yiri hadda ka hor madaxweynahan madaxweynihii ka horreeyey aabihiis ahaa waa ninkii ku yidhi gaarisa waa inay noqotaa sharci kabaandhaha kenya ka soo baxa waa inuu noqdaa kabaandho soomaaliya ay ku qoran tahay soomaaliya aysan ku qornayn kenya soomaali kenya umaad ku qori karaysaa laakiin magaca dambe waa inuu soomaali noqdaa okay ninkani midda kale wuxuu aqoon kale u leeyahay afrikaanka waa nin aad iyo aad baaritaan badan ugu sameeyey wuxuu ka qayb galay dagaalkii africa dowladdii ugu adkayd burundi huutsi iyo tuutsiga laysku leynayey raggii masaalaxada ka riday ninkii ugu qaalisanaabuu ka mid ahaa ee africa ka socday ee yidhi wiilkii yaraaye madaxweynaha maanta ilaa haddaba ka ah yidhi war annagoo rag yarar baan nahay waxbaan soo baranay adna waxbaa soo baratay isdhiib okay maxaa isku dhiibaa markuu yidhi buu yidhi sidii madaxweynihii masar uu iskaga dhiibay talaabiib israa'iil uu iskugu dhiibo oo kale isku dhiibo waxaad tiraa war nabadgelyaan doonayna nabadgelyada wax ka wanaagsan ma jiro dhulkana ciddii u baahan labadiinna qabiil wareeji qabiilkii kale intuu u tago huutsi isku dhiibay buu maanta asagii madaxweyne yahay dhulkana waa aragtay maanta waa gobolka ugu qaalisanay ingiriisku leeyihiin waxba u dhoofin marka ninkaasi waa nin dhallinyaraa waa nin mutacallina maasha allah weli waa nin geesiya oo meel walba oo loo diro galaa oo aan jeclayn wax lacag la yidhaahdo ama nolol ee jecel mustaqbal iyo dadkiisoo wanaagsan taasaan taa intaan ka aqaano intaasaan odhan lahaa okay اوكي واسع وين وقتي waxaan ma adigu ku habe waqti xilid ma ku yahay wasa marka waxa tiri Xamse Cabdi Barre ee ra'iisul wasaaraha maanta la magacaabay waa cadeeyay waxa uu yahayna waa cadeeyay waan gartay sax faray saddexda qodob i weydii okay tawas la garna marka waxa tiri wuxuu ku soo baxay aqoontiisa waa educated he is educated waa nin tacliin leh oo aqoon leh tawas la garnay okay maxay kula tahay adiga ra'yi ahaan maadaama oo tahay muxuu ahay nin muxallila oo siyaasi ah oo siyaasadda in badan ku guda jiray 22 ra'iisul wasaare ba isaga ka horreeyay oo wax ka soo noqday oo ka soo oo ra'iisul ka soo ahaa dalka Soomaaliya kii u dambeeyay marka madaxweyne u dambeeyay farmaajo iyo muxuu ahay ra'iisul wasaarayaashii ka dambeeyay ee wadagoodii dhibaatadii khayra iyo ninkii la dhigi jiray muxuu Roble wadagoodii dhibaatada fara badan baa jirtay xitaa isteediyadii maartay horimariyay federaalka baa xitaa wax weeyaan kala fogaaday maxaa u malaynaysaa ninkani inuu wax ka bedeli karo muxuu ka bedeli karaa goobta adiga kuwii hore maadaama ay siibo saar maadaama ay hayeen muxuu bedeli karaa okay
aniga hal arrin oo runta inaan ka hadlaan mar walba jeclahay qodob walbo lay weydiiyana wixii xaqiiqa ee aan wax ka ogahay inaan wax ka sheegaan jeclahay kaana wax ka ogeyna inaan fikradeyda xaqiiqada aan isticmaalaan jeclahay صح maanta madaxweynaha dalka haya wuxuu ahaa xasan sheikh madaxweynihii ugu ra'iisul wasaaraha badnaa inta ra'iisul wasaareyaal xil laga qaaday صح laakiin madaxweynahan ninkani xilka wuxuusan uga qaadi karayn oo runta ah waxay tahay xasan sheikh runtuu soo ogaaday farmaajo nin buu wuxuu hayay 3 sano iyo 6 bilood ninna wuxuu hayay sanad iyo 8 bilood waa 5 sano iyo 3 bilood kii dambaaba dawaqiyey kii hore bay soo galayeen xasan sheikh ninkani aad iyo aad bay isku yaqaanaan xasan sheikh 4 sano soo baaba'ay oo hore waa nin maanta wax fahmi kara waa nin aqoontiisi la yimid marka hore aad siyaasadda bilaabaysa waxaa la yidhahdaa asiyaasa engineers engineer adoo jaamacaddii soo dhameeyey haddii lagu diro dhul aadan weligaaba jeexin dee tuubooyin badan baa qaldamaya صح okay full mechanical markaad soo dhamaysidna sidoo kale waxyaalo badan aadan aqoono makaaniknimadaadii aan jaamacadda oolin baad baabiinaysaa صح system location marka lagu dirana waad engineer location gaadhid oo PhD aad wadatidna waxyaalo badan oo kale aad baabiin karaysaa marka aad cusub tahay siyaasaddu marka hore waa baabac badan baad kala kulmaysaa صح laakiin markaad soo madhid ee aad aragtid ee lagugu soo celiyo صح waxaad noqonaysaa qof iimaankiisa iyo damiirkiisa iyo aqoontiisa wax ku raadiya صح أنا مركب واحد كودي ورئيس الوزراء رئيس الوزراء محو قابن كرا دلك الصومالية محو بدلي كلامك سؤالي hayee dhegeyso horta أنا كودي xasan محو ما وعيرين كرا day xasan sheikh wuxuu u keenay ninkan awoodda uu leeyahay aqoonta uu leeyahay kartida uu leeyahay iyo baawarka uu leeyahay محو بدلي كرا baawarkiisa waa aqoonyahan wuxuu qaban karaa 4 shay ee maanta dalka ugu adag waa ninka keliya ee meel saari kara waa tan koowaad cadowga dalka oo loo yaqaano al-shabaab waa ninka keliya ee ciidanka soomaaliya intuu isku dumo gelin kara cadowga al-shabaab inay dalkaa ka qabsadaan waa ninka labaad ee qodobka labaad iskale ee gaarsiin kara caalamka inay soomaaliya dowlad xora tahay kana dhacday doorashad xora inay yihiin dadka soomaaliyeed muwaadiniin xora dalkooda iyo dadkoodina aan lagu qaldami karin صح tan saddexaad wuxuu qaban karaa dhalinyarada shaqo abuurka u baahan inuu u sameeyo si degdega shaqo loo صح abuuro dhalinyarada aqoonta leh iyo kuwooda reemiyigaaba dhulkoodii in ay wax kala soo baxaan qodobka afaraad wuxuu xallin karaa siyaasadda dalka gudaheeda ka socota
maanta laga wada qaylinayo wixii runayo wixii beena ninka keeni kara wey صح okay qodobkaaga اوكي saddexaad ku soco waan gartay sax wey waxaan kuudin lahaa qodobka saddexaad kuudinaya waxa weeyaan iyadoo waqtiga adiga ka waqti dambe ku yahay inaan rabnaa soo gabagabayno waxaan rabaa maya aan waqtigayga maartay hawl baan leeyahay marka waxaan rabaa in muxuu ahaa aan ku weydiiyo inaan ku weydiiyo madaxweynaha markii uu dooranayay hadalladiisa waxaa ka mid ahaa inuu ku celceliyey ra'iisul wasaaraha waxa waa nin educateda aqoon leh baan u soo doortay si fiicanna waan u aqaanaa waan ku qanacsanahay I'm satisfied therefore waxaan rabaa inuu maaragtay dhibaatada waddanka ka jirta abaaraha barakacyaasha mashaakilka xilkan berigii dhaweyd loo doortay muxuu ahaayey cabdiraxmaan cabdishakuur oo hoos taga madaxweynaha oo qaybta maaragtay barakacyaasha ah hay-adda barakacyaasha hoos tagta oo isagu welibana yahay ergey khaasa yahay cabdiraxmaan cabdishakuur uu yidhi waa inuu la shaqeeyaa oo maaragtay hadduu rabbi xukm hayoy bal muxuu ahaa arrinku carabku ku adkeeyey halka maxaa ku jiray kula tahay adiga maadaamuu si maaragtay ra-iisul wasaaruhu waxyaalo kale uu qaban karo haddana hawshan kale ee degdega ah welibana u idmaday oo shacabkiisa hortiisa isagoo oo taagan oo soo jeedinaya oo bixinaya muxuu ahaa khudbaddii inuu ku soo darsaday waa arrin aad maaragtay u leh in la falanqeeyo ama la isweydiiyo okay arrinkaa aniga kaa dhaadhicinaya oo ku falanqaynaya horta ra'iisul wasaaruhu asaga wasiiradoo dhan ka mas-uula si fiican waa awal alwasiir sax oo wasiirka wasiirada wax ka sarreeya dalka waxaa jira madaxweynaha labadoodana wax ka awood badan waxaa jira baarlamaanka maadaama uu dalka soomaaliya ku dhisan yahay 4.5 qabiil iyo wixii xildhibaanada marka intaa kuu micneeyo ra'iisul wasaaruhu wasiirka siduu u soo ruuranayo wasiirka maaliyadda buu wuxuu xaq u leeyahay wasiirka abaaraha iyo masiibooyinka in asagu magacaabo cabdiraxmaan cabdishakuur ma sii shaqayn karo si uu magacaabo wasiirka abaaraha masiibooyinka صح madaxweynuhuna horay wasiir cabdiraxmaan cabdishakuur uma siinna wuxuu yidhi waa kusimaha madaxweynaha qaybta abaaraha waa nin daruufaha un loo diray iyo waktiga markaa taagan maadaama madaxweynuhu cusub yahay dalkina abaara xun ka dhaceen inkastoo hadda dalkeenni roobab yaryar ay ka daadeeyiin ilaahayna roob badan dalkeenni iyo waaridkeenni iyo cid walboo soomaaliya ilaahay abaaraha meel walboo soomaali degan tahay iyo qof walboo islaamaba ilaahay madar khayr qabaan uga rajeyn insha allah sax haye marka intaa uga baxo tan ra'iisul wasaaraha ka mas-uula waan gartay marka waxa carabku wuxuu ku adkeeyey baa tiri uu arkay u waxaynayey anadu waxaan u fikiray maadaama uu waa wasiir qaaliya inuu ra'iisul wasaaruhu keeno si oo fiican arrinkaa qaban kara صح waan gartay marka waa shaqo uu ra'iisul wasaaruhu qaban lahaa uu kaga mudan yahay madaxweynaha sidii ajoo kale islaan halkaa iska fadhida oo la yidhaahdo wasiirka abaaraha iyo maaliyadda gabadhii hore
وتيس عسشي صح قبل ناسي واحد هاي قبر إن شاء الله وزير عمر وكيس عزلي داي مركي الدولة بابا يسوي على وقرتا وزير هذا إيمان كلو دم ويسعسلا معاد هاي صح قرر جرا وحادا هذيك قادن كرين مركي اللي ماتوا ده هذا العقدون هايدنا ويسدي ويسا هذا العقدون هاينا إيمان لا هاينا إيمان كان العقد تكون صح واقرتي مدن marka waxa su'aasha afraadan ku diinaya waxa weeyaan hawan fahmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii uu doorashada ku soo baxay ugu horeysay ama hadalkiisa waa dhageysanayay wuxuu yiri waxaan hadalkiisa waxa kamid ahaa inuu yiri dadba waxay leeyihiin bas ma wataa waxaan wataa buu yiri isjiid baan wataa buu isjiid dheer baan wataa buu oo buuxsamaynin hadda hadalkiisa taas hadalkiisa bay ahayd marka wuxuu ahaa imika farmaajo wuxuu ahaa nolol nabad iyo nolol laakiin isagu wuxuu yiri Soomaali heshiisa dunida heshiis la marka ereygaas hadii aad miisaanto adii shakhsiyan maadaama uu tahay siyaasi muxallila maxay ku tusaysaa اوكي horta walaalkayga qaaliga aad iyo aad inay ilka case korneelkayga qaaliga aad iyo aad baan kuu salaamayaa mar koowaad iyo mar labaad maadaama qodobkeena ugu dambeeyey aanu ka wada hadlayno nin magac leh baa tahay darajo sare gaaray nin ilaa aabiye caan ah adigana aad iyo aad uga horumartayba cid walbaba aqoon walbana aad baratay maasha allah aad iyo aadna waan kuu salaamaya guliga gobonnimaan ku leeyahay صح okay marka labaad madaxweynuhu waan wanaagsan buu caddeeyey حكم wuxuu yidhi anu bas ma wado ee waxaan wadaa tareenkii nolosha waa tareenku dee waa baalkan dheer ee malaayiinta caalamku fuusho okay aan joogsi lahayn dee waa transit waa Soomaaliya oo dhan baa soo wada afjari kara okay wuxuu ku soo gaabiyey tareenkaasoo magaciisu yahay Soomaaliya oo nabada maxaa laga wadaa bal haddaan waxyar ku tusaya Soomaaliya oo nabada waxaa laga wadaa xaq nin walba xaqiisa halka uu joogo inuu ku heli karo qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed aan la xaqiri karin iyo caalamkoon nabada waanu heshiis wadannahay oo aana dawlad baysaysanee qofka Soomaaliga meeshuu doona u dhoofi karo meeshuu doonana ka iman karo si maxaa ka horeeya labadaa qodob keebaa horeeya Soomaaliya oo nabadaa horeysa caalamka maxaa ka horeeya Soomaaliya oo nabada Soomaali maxay ku heshiin karaysaa Soomaali waa 4.5 afar qabiil iyo nus baa lagu matalaa afartii qabiil baa laba qabiil shaqaysaa labadii qabiil waa hawiye iyo daarood labadii baa iswada dhacaya hawiye weligaa maaragtay nin habargidiroo madaxweyne noqdo
ها وعبد القاسم بس كاسنا عرتوها ونك باللابي 4.5 حتى خاهر يفضيا واك غورغيغي غورغيس واسكو دغي او انتان كوغيا سوشيال ميديا فرو بان عالم قرن لي maxaa noo qaban karaysa am ونف إن قبوا ما goob weeyaan laakiin hotel baa laygu xiray oo buu yiraahdaa markaan wareysto aniga wax kale bay iguma laba warhana cabdisalaam weytinaar baa lagu yiraahdaa nin siyaasi ah tahay waxbaad baratay haddana dadka waa iska qarisaa nin aqooyaana tahay social media waad soo gagashaa mararka qaarkood buu yiraahdaa laakiin maxaad isticmaashaa eeg aniga iga leex صح okay daaroodka markii lagu soo noqdo abgaal meeqa madaxweyne heleen horta labo كيس تحاول مريا أف saddex maya saddex cali maadi iska daa cali maadi ninkaasi gooni buu ahaa laba kale heleen كيس تحاول قريت maya hadda ninkan hadda ninkan uu caqligiisa uu shaqaynaya صح waanu واقف taageersan bal صح aanu aragno fiiri horta صح qofku caawa adiga ilka casaa korneel ilka case haddii lagu yimaado oo aad meel yar furatid oo adoo caawa furay ilaa berri ilaa saadam ilaa isbuuc hataa ama bilba waxaad iibinaysay inaa faa'iiday inaa qasaadhay ma garan karaysaa هذا حسابتي maya dee maba fahmi karaysi هذا حسابتي هم فاهم كرو صح okay dowlad nin hayana maxaad u malaynaysaa dowlad weyn oo madax أولوك هذا صح تاوان قرتي سيف عملوا فهمي marka waxaan rabaa inaad soo gabagabayso hal arrin baan kuu dhammaystiraya dhegaysa marka noloshu waxay ku fiican tahay horta dowladdu markay cusub tahay ilaa 6 bilood ilaa sanad in la ogaado waxeedii qaldan wixii saxan waa muhiim anuu caawa nin baa wuxuu ii soo qoray arrintii shalay kenya ka dhacday daraad kenya ka dhacday somaliland iyo soomaaliya labadii calan meel la wada dhigay uu wasiirkii soomaaliya safaaradda safiirkii soomaaliya tarsan uu iskaga dhaqaaqay okay kabacdi wuxuu igu yidhi muxuu madaxweynihii uga hadli waayey muxuu ka hadlaama yidhi farmaajo ma hadli jiray warqad buu habeennimo soo tuuri jiray laakiin dowladdani waa dowlad xaqiiqo ku dhisan warqadda wasiirka arrimaha dibadda ka hadli kara wixii safaaradaha dowladda kenyana saacaddiiba cafis bay dalbatay waay waad adigu u baahan tahay markaasuu yii aniga abgaal waa wuxuu ku doortay ninka ogaadeen intaa qoslay baa ku iri adu ma ogaadeen baad u socotay mise waxaad u socotay aqoon iyo safaarad iyo dowlad صح eeg adduunyadu waxyaalo badan oo qaaliyaad ku arkaysaa oo aad maskaxdaada aan qaadanayn haddana markaad xisaabta isku dhuftatid aad wax kala soo bixi karaysa si fiican waxaad fahmaysaa qofka dhulka hooyo baabi'inaya iyo qofka ku wanaagsan si fiican si fiican mudan muhiimadeennu waa taa dadka soomaaliya baabi'inaya intooda badan waa maxay waa dad caada qaataa oo jeebadda lacag loogu shubo oo aan ahayn qabiil 4.5 walaa reebel ee iska ah dad yaroo doonaya inay wax halkaa ku xirtaan oo lacag yar qaataan
dhulkoodana ku baabi'iya si fiican aniga kula hadlaya caawa waxaan ka soo jeedaa beesha ogaaday sax nin ogaadeenoo ani waxaan arkay galabta salaada casar anoo niman la kaftamaya igu yidhi kelmad aad iyo aad iiga naxisay sax nimankii baa meel iska saaray war ra-iisul wasaaraha maxaa ku diidantiin maya ogaadeenku waa etoobiya waa amxaar balaayo markii la guray sax baa waxaan niyo haddaan etoobiyaan ahaa iyo haddaan kenyaati ahaa aniga ina moytinaar baa la etoobiya kuma dhalan muqdishoan ku dhashay isbitaal digfeer ku dhashay xaafadda kaaraan baan kusoo koray ardaynimada dhamma yaasiin cartan baan kaga soo baxay dugsi hoose ku dhigtay 8 jir baa sacuudi carabiya magaalada jidda liigi ilaa intaa qurbaan joogaa baan ku dalkayga waan tagaa waan ka soo noqda hadda waddanka masar baan jooga bal maxay dhihi lahayd ninkaasi ilma adeer baan nahay waa nin ogaadena wuxuu igu yidhi maxaad taageen dhimataqa saa'ir maxaan taageen si qoraal baa facebooka dhigto oo ra-iisul wasaarahaad u hambaliyeysa oo aad iyo aad qaali u noqdayo xataa wasiiro waaweyn baa ku soo waca waanu ku naqaana anigii baa intaa qoslay baa yidhi wasiiraday soo wacayaa ka mid a wuxuu soo qaatay uun reer keliya markaasaan ku idhi hadde ra-iisul wasaaruhu haddee xaggayga hoose ma aha hadduu adiga noqon lahaaba xataa wallahi waa ku dili lahay oo maxaa dhiboo jiraan annagu waxaan rabnaa dhulkan inaan gacanta ku dhigno adigoo ayaa waan ku iri oo annagoo reebala wiigu markaasaan aamusay hadda magacyadaas waaweyn inaan social media ka sheego sax waa fahmina sax sax marka dhegayso waa aamusay waxaan ku iri war annagu badda shaqo kuma lihi ra-iisul wasaaraha soo baxay aniga isaga isku jilib ma nihin nin cawliyaana maaha anigu nin ogaadeen cawliyaankaa baan ahay laakiin wixii xag kale ka jira aniga dee haylay sax haddaad diidinna dee masar wallahi oo kusii salaamaynaa unoo hadda ka bacdi qof salaanta kaa qaadaad waayeysaa waa lagaa cararaya صح qofkaas waa qof aqli gaaba qofka hadduu qabyaaladii waxa ka sheekeeya aqli gaab wey ninkan waa nin dalka Soomaaliya matalaya qof walba noqon kara qofkuna waxa ninkan muhiimaddu waxa weeye imika marka waxaan rabaa mudan waqtiga iga dhacaya waxaan rabaa inay soo gabagabayso okay ra'iisul wasaaraha waxaan jeclahay dadkiisa iyo ummadda Soomaaliyeed wixii mucaarad ku ah wax cad inay halkan noo keenaan si aan ula hadalno aan uga jawaabno maadaama uu halkan ra'iisul wasaare iyo madaxweyne midna soo fariisanay ciduu doona ha noqdo ilaahu kaan dhalay muu noqdo صح waaka صح waan fahmay waan gartay marka waxaan rabaa bal inaad soo gabagabayso oo bal ummadda Soomaaliyeed waxa weeye muxuu ahaayay ra'iisul wasaarahan loo doortay ra'iisul wasaaraha maxaa ku soo gabagabayn lahayd oo ku darmi lahayd in ra'iisul wasaaraha loo shaqeeyo in maaragtay muxuu ahaayay soo shaqeyn iyo maxaa adiga maxaa tala ah oo soo jeedinaysaa ama tala ama tusaale ama ra'yigaaga adiga adoo soo gabagabaynaya jaaniskaaga waxa weeyaan okay brother korneel kacse horta mar koowaad iyo mar labaad baan ku salaamaya ummadda Soomaaliyeedna aad iyo aad baan u salaamaya dadka Soomaaliyeed dhammaan meel walba degan yihiin dal iyo dibadda ما شاء الله وعيكم مقلة يوعيكم مقلة دونبا سفيان إن شاء الله لا أنت هذا السوشيال ميديا كنت لي أنت يدقيس دونتك وروح على الله والصومالي ضد ميلان كانوا قاعدين يدكن كين يدكن
iyo kan jabuuti degan iyo kan xamar degan iyo kan boosaaso degan iyo kan hargeysa degan saddexduba waa isku sharci markaad caalamka joogtaan iyo qurbaha dhibka aad dareentaan eega dalkiinni dhib noocaasa ka socdo qabiil beenana haddana waa la isku haystaa war waxaan leeyahay dalkiinna u gurmada intiinni wax baratay intiinna hanti lahayd intiinni bini aadan ahayd ee xataa damiirkoodu shaqayn karo dalkiinna hooyo u dooda xaqiiqadiinnana la imaada madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha labadaba waxaan leehay shaqadiinna mar koowaad iyo mar labaadba allah nigu asbo golaha baarlamaanka waxaan leehay dhammaantiin hadda inta u badan dhallinyaraa tihiin oo anoo kale waa 42 ilaa 48 jir odayaashii golaha sare waxa jooga anigu shaqo kuma leeyi golaha dhexe nagala hadlayaa baarlamaanka intiina badan dhallinyaraati waxaan leeyahay inigoon qabiil la eegin oon wax kala eegin dalkiina iyo dadkiina ayaga dhammaantiin qurbaad kusoo silacdeen rag badan oo 30 ka badan oo ani waxaan aqaanaa taariib sacuudi carabiya iyo yaman lugeyn jiray buuraha dhexdooda waxaan aqaanaa kuwo cumaan ayagoo la garaacaya aan arki jiro hadda xildhibaanaa anaa runta nii sheegay kuwo masar guryo kareen jiro hadda xildhibaanaa anu mahad salaad qaahira waa isku soo gaar isagoo guryaha qaahiro kareeyaan wallaahi ku soo gaar sanigaas waa mas-uul wey hadda waa nin mas-uulo weeyaan oo muxuu ahaa nabasgudu haystaa baxs jiray raggiin xildhibaanada ay dhegaysta war dalkiina badbaadsada annagu uma baanin wax kale oo dana waxaanu u baahannahay dhallinyaradeenna kale ee wax soo baratay inaanu dalkeenna nimaano oonu ubadkeenni wadaniyaddeenni beeraheenni dhulkeenni hooyo ninba dhaqankii u lahaa kii geella kii beerla anu caawa ifka waxaan ku jeclay aabooy 2,000 oo halaada soolay baa iigu dambaysay caawana ifka waxaan ku jeclay anoo beero iyo guryo waaweyn intaan dhisto beero samaysto masaariic waaweyn samaysto warshadaheena ee qofku wuu isbedeli karaa markuu wax fahmo noloshu waa fahmi marka waxaad leedahay la jaanqaada soomaali mida la jaanqaada siduu madaxweynuhu yidhi weeyaan waa inaad gacmaha isqabsataan waa inaad noqotaan maxay ahayday dad ka kora shisheeye oo dalkooda aamina waa sax weeyaan gobol walba oo soomaali degtay waddan